أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. أصحابتي إذا قالي عوض واحد إنه وداعي شاكو ما شاء الله سكذا وحي كصابسنت هاي رير فاميلا أو حد كان عين صومالية سكذا سام بيودع عيسي سيد عاد صومالية صباح ظهر وحى شغلتك وذاتك ريرك إسكاله أما حاجة كوادا قبا أما فاميلك أبو هذا sida hadba u taqaan Soomaaliya ayaa wax u aadi jiray shaqo reerka family bay ahaayeen gabadh waxay haysatay caruur waxaana qabay wiil ma sha Allah waxay iga codsatay magaceeda inaan qariyo oo maxay hayto aan social media magaceeda aan la wadaagin marka sidaas hal la socda asxaabta shaqada ayaa dul mariya marka gabadhan waxaan u bixinaynaa magac Fardooso ma sha Allah wiilkan waxaan u bixinaynaa Maxamed maadaama codsaday familkeena magaciisa la qariyo asxaabay sheekadu saan bay u dhaceysay waxa dhacday reerka inay maxay hayto uu wadaad ku shaqo tagi jiray subaxda hore sida caadada u ahayd ba ma sha Allah hooyada waxay ahayd hooyo gaari ah hablihii la dhihi jiray dadkeena hore subaxda todobada hore ayuu wadaad ku shaqo tagi jiray gabadha qaba ما شاء الله سيد عادة إنه أهنا هو يدو waxay diyaarin jiray quraacda aabaha subaxdii cunaya insha Allah subaxyaha kamida iyadoo ku jirta xilliga canjeero dubista miyaan la dhahay ama suqaarka ay tirayaan jarjarayay canjeeraduna ay dhinacayaan ka dubay tiri xaajigayga waxa uu jiifay sariirta waayo waxaan kiciyaa todobada markay saacadu ka istaagto si uu quraacdo waxay ahayd shaqadiisa nolol maalmeedkaana ugu labisto isugu diyaariyo waxa ay tiri maamadani Fardooso waxa ay tiraahday gurigii markan hawshan gacanta ku jiro quraacda sameynaya ayaa xaajigayga waxaan dareemay bay tiraahday asagoo hurdan ku ogaaye asagoo degdeg u qabaysay degdegna u labistay dharkiisa oo xirtay kadib waan soo weydiiyay waxaan dhahay xabiibi xagaad ودقيقة ساكا وحدا maxay ahayd xayaati ma doonayo quraac mana sugi karayo waxa soo wacay ninkii xafiiska madaxda ka ahaa wuxuu igu dhahay marti badan baa ku joogta waa inaad shaqada soo gashaa sidaas ayuu igu dhahay way tiri marka xabiibi marka insha Allah waan iska soo laaban doonaa waxay tiri wax yar kadib markii aan quraacdii sameeyay asagina uu albaabka ka dhamaaday qadar 5 daqiiqo si maqan yahay maskaxdeeda ayaa kala wareegtay wax badan baan maxay ahaytooy niyeystay maxay ahaytooy dadkii masayr ahaa dalaq nagu xilligan xaqu jarmaaday amuusan shaqadii aadin amu naago iyo meelahaas aaday wax baa laysa sawiray tiri sheekooyin ayaan isku dhufsaday sheekadii markaan isku dhufsaday waxa ay soo baxday tiri inaan ninkii ka daba tago وحفيزك الشقادة أنا كده بعاده أنصح بيقولوا تري إن حفيزك هذا يوم يلك لهذا دق حي تري وأنا لبستي حجاب دير أو حجاب كذا دير أو حي تو إسلامه هو يدد حرتان أو واركي سنة صدح واري برا يان حرتي إن شرر هل واري برا نوان حرتي تري أنت مركان سميه حرتي وحن كده بحي وذات كي شغدي سي أيان السيتاجي وحوك الشقين يميلها دولة دوكله ماشي waxay leedahay waardiye ma dhaafi karo xijaab dheer baan qabaa laakiinse intaas maskaxdeeduba kuma ay soo dhicin waxa igu soo dhacday tiri ninka amu naag aaday uusan aadin shaqo marka haduu shaqada joogo bal soo hubi waxay tiri shaqadii ayaan aad ka daba tagay asagii ayaan isdhahay bal ma gashaa maxay haytay xafiiskiisa soo xafiiska eridka hore waxa fadhiya waardiye علشان وارديها محي هتي لما دافي كرو صوته أول بقف إن شريان ما دافي كرو سماني وأكتهين ميلها وارديها شاء إن شرير كوالس كفيقة مركا وحا يقصر على تري إن شرير كوالغا في قيادة وأساسنا عبك وقدها بلغاريجي السكافيري ميلها وجهاد هوري بابور تلديقة مركا قفك مركو علشان سمالي باكي مسا ولا دين مالهن أما باكي مالعا مالهن قف ماشو كشقينaya ama gurigiisa hortiisa waxa caan ku yahay duu qofkaas gaari wato inuu gaari guriga hortiisa dhigto ama inuu dhigto maxay ahayd toy barxadda ka horeysa meesha oo ka shaqeynay barxadda fiirfiirsho waxa tir wax gaariya ma yaalaan
waxaan isdhahay amuusan maxay ahayd tooy ninkaagu uusan shaqada ku jirin waxaan misana niyadda igu soo dhaxay hadduu ninkii halkan yimi gaarigiisa ayaa ku arki lahayd taasna niyadeeda waa ay ku soo dhacday tir hooyadii waxay tiri wax yar kadib ayaan isdhahay xoogaa ma sugtaa waa inkastoo aad ka soo horeysay marka waxay tiri waan iska sugay 5 daqiiqo kadib markaan meeshii sii fadhiyay wiilkii iyo asagoo gabar xafiiska kala shaqeynaysay gacanta haysta ayaa gaarigii ka soo degay waxay tiri awalba markii horeba mujaa masayrku uu yahay ninkii naagtii markaan arkay inuu naag la socoto gaarigana ay saaran tahay degdeg ayaan ugu boobay talaabada halku gaarigu baakin ka soo galay dhinac kale ka taagnaa degdeg ayaan ugu boobay kadibna dagaal ayaan la galay gabadhii uu wiilku watay waliba maxay ahayd tooy asagoo ni garanay waxaan ahay sababtoo ah dee xaaskiisii meesha kama filanayn waxa uu damacay inuu iga qabto gabadhii markaasaan ku dhawaray ay ma soo dhawaan kadib fartaadan ay ma saari kadib markaan hadlay waxay tiri codkayga waa uu gartay anigii maxay ahayd tooy gabadhiina waan isqabsanay waliba maxaan isku qabsanay tiraahday sidii mar qof dagaal soo qaadad garanaysaa aysan iga filanaynin ayaanba maxay ahayd tooy gabadhii shaqada u socotay wejigeedii meel kasta waxay tiri meel farra saaro jirkeeda kama reebin waardiyihii meesha intay soo ordeen iyo dadkii shacabkii iyo wixiiba markay soo ordeenba iyo asagii oo markaa dul taagnaa asagana markuu arkayba arrintii ay ku noqotay waa bariyay oo dee xaaskiisii oo gabadhii uu maxay ahayd shaqada u waday gacan u qaaday marka waxay tiri mar allaala markaan arkay intaan dadkii igu soo wada yaaceen ayaan orday bay tiri markaan orday waxaan iska bixishay tiri xijaabkii aan qabay indha shareerkii waliba waxaan ku daray tiri dirci baatiga ha aan xiraa wow ceebad ka dhacday meeshaas kadibna waxay tiri ma ihibay tiri qof kaliya oo markaas waxaa sameynaysa laakiinse wax walba waxa iga keenaya masayrka igu jira ayaa iga keenaya tiri wax walba oo maxay ahayd tooy dee dareenkayga ma qiyaasi karo markaas hase ahaatee waxay tiraahday gabadhii waan cararay jid cadda dheer oo markaas xafiisyada hortooda maray ayaan toos u qaaday markaan jid caddii toos u raacay waxay tiraahday dharkiina waa aniga iska baxshay dee waxba la isleeyahay qof waalanba dadkii waxay leeyihiin qof waalanba waa iga hareen cidna ima soo dabacaarsan deen walba waabaa ku bariyay waxa ay tiri kaaga daranta waxay tiraahday markii aan orday saan orday waxaan u galay reero albaab aan lahayn gurigoodii aan dalaqeeray waxaan dhahay jimba ay soo cayrsaday dharkiina way uga la haray maxay ahayd tooy gurigaygiina xalay waan ka dhahay aabahay halay waho waxa ay tiri aabahay ayaa la wacay waxa la dhahay gabadhaadii oo jinku jiro ayaan adeero haynaa wuxuu dhahay gabadhahaygii way dhaheen gabadhaydii uu dhahay reer bay leedahay gabadha kaleetana way maqan tahay maxay tahay gabadha haysaanin amaana anigu dhalin buu odaga sidaas dhahay maya gabadhaadu waxay sheegtay inuu jin la soo tagay xalay gurigeedii kala soo tagay bal gabadhaadii wuxuu dhahay odagii bal gabadhaydii ninkii qabay ayaan wacayaay bal suga odagii wuxuu wacay gabadhii wuxuu dhahay xaggaad ku ogtahay gabadhii faa'ise ahayd xaggaad ku ogtahay wuxuu dhahay gabadhii gabar bay isdagaaleen kadibna way carartay oo dharkii waa iska bixisay odagii markaas ayaa ugu dambeysay hadalba ugu dambeysay wuxuu dhahay sababta aad iigu soo sheegi weyday maxay tahay hadday sidani dhacday qisadan dhacday maxay tahay oo aad ila soo socon weyday haddiise gabadhii ay maxay haytay ay dad isdagaaleen maxaa iigu soo sheegi weyday anigoo aabaheeda 20 jir ah ayaaba magaalada kula degane maxaa iigu soo sheegi weyday waxay tiri halkaas colaad ayaa ka bilaamatay aabahay iyo wiilkii qabay dhex martay hadalla ayaa la isdhaafsaday hase ahaatee aabahay gaari ayuu igu soo doonay waxa uu geystay tiri gurigiisa kadib way tiri anigii waxay tiraahday waxaan isdhahay tiraahday
وإن الحلقة أنت سيدا حل معهن علشان محيها توي إن دي قفارا هذا نسكدي جيت هذا بس أنا والد دي واحد إسخرسان زماحن مركا وحن سدهاي تري وأنا نسكدي قف جين هيو جين هيو وأنا نسكدي وده لي على القرآن بالله سارة واحد ترى هذا المره نوح مره نح مره هرت واحد تري اللي ببري يسدح بري أيام برد إسكدي واحد كاستالي قصة مايو عج كوما نسجلي ونسكوية وبا waxa ay tiraahday mamadii waxa ay kala tiri qof kaliya bitir uma sheegin arinteedan oo man dihinin sidaas iyo masayr ayaan isku qaabiyay midda kale waxay tiraahday aabahay aad ayuu xanaaqay reerkayagii hooyaday dadkayagii dhan shoog ayay qaadeen oo shoog ayaa ku dhacay kadib waxay tiraahdo kale familigii aan ka dhashay dhamaan de arintii wada maqalin inaan naag istagaalay wixii bumboonis ninka u jeeda inuu maxay ahayd toy gacan qaad dhacay sheeka xilli aroora inaan guriga ilmahayga ka soo tagay hawsha cirka ayay isla madhay tiraahday aabana wuxuu soo istaagay tiraahday gabadhayda warqadeedii baan u baahanahay ma wadhiga shadid mas'uulna ma qaadi kartid anigii reerkii ninkayga waa rabaa waxay tiri talaba faraha waa ka baxday talaba faraha way ka baxday marka waxay tiraahday